wargeyska xorriya ee dalka Turkiga ayaa sheegay in madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu ku dhacay meer doorsan xilligii uu tukanayay salaada Ciidul Fitriga ee shalayto. Wargeysku waxa uu tilmaamay in caafimaadkiisu taam noqday goor dambe xilligan uu ku sugan yahay xaalad caafimaad oo wanaagsan. Wargeyska xorriya ayaa ka soo xigtay madaxweyne Erdogan oo leh waxa ugu dhacay waxoogaa meer doorsan ah kadib markii uu kor u kacay macaanka jirkeyga oo xanuunka muddo aan la tacaaliyay, laakiin xilligan aad baan u wanaagsanahay ayuu u sheegay wargeyska xorriya. wargeyska Turkiga waxa uu sheegay in ilaalada madaxweynaha Turkigu ay ku soo xoomeen halkii uu ku sujuudayay madaxweynuhu oo sujuudda la soo kiciyay waxaana ay sheegeen kuwa dhakhaatiirta ahayd ee la socotay iyaguna ay ku soo xoomeen oo ku soo yaaceen daqiiqada gudahood, laakiin ay ilaaladiisu ka mamnuuceen saxafiyiintu inay soo galaan masjid jaamici uu ku tukanayay madaxweyne Erdogan. waxaase jirtay buu leeyahay wargeysku in uu salaada kadib madaxweynuhu qabtay shir jaraa'id oo masaajidka hortiisa uu ku qabtay, taasina ay muujinaysay in caafimaadkiisu ka soo roonaaday. dhanka dalka Suuriya ayaa iyana madaxweyne Bashaar al-Assad waxa uu qaaday tallaabo loo arkay inay tahay mid naadira, waxaana uu ka yaabiyay shacabka magaalada Xama oo uu kula tukaday salaadii ciidda isagoo halkaa ku tegay safar degdeg ah oo aan hore loo sii qorshayn, waxaana sidaa ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. safarka madaxweyne Bashaar al-Assad ee magaalada Xama oo ku tegay waxaa loo arkaa inuu yahay masaafadii ugu dheerayd ee uu gooyo ee dalka gudihiisa tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay waddankaasi sanadkii 2011, iyadoo xaaladda waddankuna ay tahay mid qasan. telefishinka rasmiga ee dowladda Bashaar al-Assad ay gacanta ku hayso ayaa muujiyay isagoo ku tukanaya masaajidka weyn ee magaalada Xama, halkaas oo ay dhabarkiisa ka joogaan koox badan oo culimada waddankaasi ka mid ah iyo dadweyne kale oo muslimiina. magaalada wararka ee Suuriya ee Sana ayaa iyaduna waxay sheegtay waxay ka soo xigatay ninka lagu magacaabo Najmuddin al-Day oo ah mudiirka awqaafta ee magaalada Xama inuu sheegay in madaxweynaha Assad dadka dadweynaha magaaladaasi la tukaday salaadii ciidda mubaaraga. ciidamada mucaaradka ee Suuriya ayaa bishii March ee sanadkan waxa ay horumar ka sameeyeen dagaalka magaalada Xama, laakiin kadib markii ay ciidamada Ruushka adeegsanaya diyaaradaha culus iyo madaafiicda ridada dheer ay caawiyeen madaxweyne Bashaar al-Assad, waxay keentay in kooxaha mucaaradku ay dib uga noqdaan magaaladaasi. sanadkii horena madaxweyne Assad ayaa magaalada Homs waxa uu kula tukaday salaadii ciidda. madaxweyne Assad ma booqan magaalada Xalab tan iyo intii ay ciidankiisu ka saareen kooxaha mucaaradka bishii Diseembar, waana guushii ugu weyneyd ay ciidankiisu soo hoyaan tan iyo intii ay dagaaladu ka bilaabmeen waddankaasi.